dadka anaga wadanka ku cusub oo cuduradu u bateen waxa noo keena oo cudurada dhalinaya waqti aan loo sheegay koob ilaa wadanka waa ku cusub cudurkeena waa bataa tirmo taa horta weli ma hayo anaga waxaan tabahayaa saddex cudur oo sheegtay waa qaba sokor qaba dhiigga qaba cholesterol leeyahay waxa dhawaa ugu dhacay wadankaana igu horreeyay marka inta bacdi ugu dhacay marka waxaan arki jirnay xoolaha haddii meeshaan ay degan yihiin yaqaana laga raro oo meel kale la geeyo wax yaa daltub yaa ku dhacday waa wajahada waxaan u tagaa waa ku dhamaada marka anigu waxaan leeyahay wadan aanan aqoona timaadeen cudurkaana halkaas u maaragtay inuu kaashanaya example kasoo qaad anigu cudurkaan sheega qaba Soomaaliya dhakhtarku wuxuu ii jiray baxday oo nuurada waxaan nuurada waayo wuxuu ii afka u socotaa waxaan xabso wadanka hadaan tegay mishikii sokorta waa wuxuu cabirahay kii dhiigkana waa wixii dhawaa waa baabay subaxdii 7 oo karniyaha la qaayay habeenkii 7 kale 4 xabban la yahay sana marka anigu waxaan qabaa ra'yi ahaan cudurku baa halkaan meesha aan nimid yaa cudurka waa wixii xanuun hayay oo kariin u laga jiray wadanka markaan qaatay oo hawadiina qaatay cuntadii fresh ka aan qaatay خلاص galay adeeg shay marka su'aashiidu waxay tahay marka waxaan iska ilaalinayno oo dadka hore u deganaa meesha ay cudurkoodu u yaraaday أنا أقول لك أنا أبنتي يا رأينا نوشيك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. سؤال شاسي waxay ka turjumaysaa maxaa la dhihi jiray dareen guud oo ummadda ka jira oo ah in wadanka aanu nimid ay dhibaatada iyo cudurrada iyo wax kastoo aanu dhaxalnay isagu mas'uul ka yahay mar haddii saa u sheegtid ama sidaa u sheegaya waa jiraan waxna waa ka jiraan laakiin waxaan rabaa inaan kala caddeeyo waxaad sheegtay blood pressure waxaad sheegtay kaadi sokor iyo waxaad sheegtay mid kale oo saddexaad cholesterol okay anigu waxaan qabaa ra'yi taa ka duwan oo laakiin wixii dhan way soo wada keenayaan waxaa jirta marka wadankaaga aad deganayd oo Soomaaliya ama Afrika meesha laga yimid waxyaalo badan oo runtii nolosheeda kamid ahaa oo maanta aan runtii heli karayn ilaa lacag inaan bixin mooyaane tusaale ahaan in dhidid uu ka yimaado dhididka shakhsiyan dhidid imaatiga ma ahan macnaha in physical activity waxa kan wax laga hadlayaa waa cilmigan ka hadlaya waxay tahay war waxa aad cuntaa qofka cunno la'aan ma noolaan karayo oo cunnadu waxay tahay maalinta markaad saa u soo baxayd ilaa iyo maalinta godka lagu dhigaa afkun baad wax marinaysaa waxaasina cunnada waxay ka samaysantaa wax loo yaqaan energy oo cunnadu ma ahan biyaha ayaan lahayn maxaa wax energy loo yaqaan marka tusaale ahaan waxaan rabaa inaan sheekada soo gaabiyo waxa weeyaan qofka bini'aadamka ah wax uu cunaa oo energy wax loo yaqaano ayaa gala oo uu maxaa ka tamarta jirkiisa gasha ee uu hawsha ku qabsado Soomaaliya markaa joogtay oo aan runtii arintaas waa arin runtii aan aad u danaynay sababtoo ah cilmi baaris gaar ah ku sameeyay waxa weeyaan waxa farqiga jira waxay tahay wadanku dib kama lehe innaga waxaan nimid nolol runtii ka soo gudubtay boqolaal sano ka hor xaalad oo hadda maraysa xaalad kale wadan waxaa timid teknolojiyada ay horumartay qarnigii ugu dambeeyay kacaan warshado dhaha yimid wax kasta fududaanay maalin aan ku dambaysa maalin kasta waxay sheekadu maraysay gawaaridaasi iyo wax kasta inaad maxaan kula fadhiga ku qabataa oo wadankii dhan baad tusaalaha markaa soo qaadatid waxa loo yaqaano bararka ama obesity-ga overweight-ka sokorta blood pressure-ka waxaasoo aad arkayso oo dhan 20-30 sano ugu dambeeyay yes waa triple wax loo yaqaan saddex laab bay samaysmeen taa macnaheedu maaha marka in maxaa la dhihi jiray wadanka uu cudur fadhiyo ee macnaheedu wuxuu noqonaysaa qofka adigoo kale ka soo qaad qof baa Soomaaliya ka yimid maalintuu iimaanay waa la soo baaray
isagoo wuxuu caata oo maxaan ku raad ma sha Allah wax kasta u yihiin laakiin markuu halka yimid ayuu maxaa la dhihi jiray waxa qofka ugu roon markiiba uu bilaabay waxay tahay cunadii hadhacto maxaa ku daltabiyoodka sheegaysa maxaa lahaa qofka cunada nooco maalmo kadib laakiin dabadeedna waxa dhacaysa inuu enjoy gareeyo oo ka faa'iideysto maxaa ku barwaaqada halkan taala kow waxa ka imaanaysa meel rootiga uu ahaa wax la xisaabiyo waxa ka imaanaysa meel qadadu ay ahayd saxan isla sugo oo maxaan ku raahdaa duurkii familku dhan inay yimaadaan lagu qasbanaa waxaad ka imaanaysaa meel maalintii dhan dugsi u socotay iskuul u socotay maxaan ku raahdaa ari raacday geel raacday oo inta ka baxda energy ah iyo inta ku soo gasha ay aad u imbalance yihiin oo macna inta ka baxda badnay halkan baad imaanaysaa oo waxaan xasuusanayaa runtii qofka marka qaarkood rabo inuu ogaado reer baa dhici karaysa Soomaaliya joogo in ay doonaan in maxaan ku raad qof ay casumaan sheekh iyo labadiisa xir baa laga yaabaa inaad maanta quraan akhris ugu yeeratid dhici karta reerkaasi inay hal daqiiqo u qalaan oo ay maxaan ku raahdaa kiilo bariis u kariyaan waa runtii waa la yaabaysaa maanta waxaad imaanaysaa kin kaana siyaaro waxaa dhici karaysa in neefkaasi oo adigu aad cuntaa oo aadan maxaan ku raahdaa subaxiina ay ku dheertahay intaasoo energy ah haday noqon lahayd ice cream haday noqon lahayd intaasoo coke ah qofka coke yara markuu cabo inta sokor ku jirta lama ihtimaali karo lama qiyaasi karo marka waxa isbedelay wadanku ma ahane adigiba waxa kugu dhacay waxaad ka timid meel waxa kugu yaraayeen wax kasta kugu yaraa you are undernourished in skinny baad ahayd maxaan ku raahdaa waa lagu cabiri jiray maxaan ku raahdaa dadka taajirka maxaan ku heli kareen cayilaan dukaanlaha magaalada jooga ayaa maxaan ka awoodi kareen inuu caloosha inta ka salaaxo kaasa wuxuu ahaa dadka dhan meesha u daawadaan oo ay noqdaan qof kastaba waa taajirkii magaalada oo awoodi karaya inuu cunno saddex cunno helo oo uu maxaan ku cayilo halkaas si upside down bay noqotay upside down wuxuu noqotay faqiirkii baa wuxuu helayaa cunnada tii ugu raqiisnayd beegar baa laga yaabaa 99 cent inaad ku heshaa wax kasta maxaan ku raahdaa upside down bay noqdeen taasoo ay ku dheertahay inaad jimicsataa in ay noqonayso in $50 ka badan ay ka baxdaa haddaad doonto inaad maxaan ku raahdaa weegi beerihii iyo maxaan ku raahdaa jankalkii dhulkii aad mari jirtay ariga ku raaci jirtana haddaad doonto waa inaad gaari qaadataa waxaasoo dhan oo aan waagii hore aan u haysanay for granted ayaa maanta maqnaaday marka maxaa soo baxay marka maxsuulku wuxuu noqonayaa cun oo seexo ka waran waxay noqonaysaa inuu uslugayo gurigiisa iyo masjidka dhici kartaba dadka iyagu waxa laga kar laayahay soo baarkin garaysan maxaa la dhihi jiray meel 1 kilomitir ka fog masaajidka oo maxaa kara u soo lugay at least aad lumisida maxaa ku radaa intaas oo kale ka baxdeen marka arintu waxa weeyaan waa arin u baahan discussion inta ka balaaran laakiin anigu waxaan qabaa yes markay cunnadaadii isbedeshay markuu dhaqdhaqaaqaaga isbedelay markay waxyaalo badan kugu soo kordhay yes cunnada wadanka la cunaa yes waxa way waa high calorie bay leedahay oo aad bay maxaan ku radaa u energy badan tahay waan loogu talagala waa la farsameeyaa sababtoo ah cadiinka lagu badiyaa ama cusbada lagu badiyaa si ay dhadhan u yeelato dad dhan baa ka shaqeeya arintaas marka dad waxaad u timid oo business minded ah isaga sameynaya adigu kuugu talagalay ee doona maxaan ku raahdaa masaakiinta inuu $1 uga gado isagu maxaa la dhihi jiray waxa way wuxuu ku jira nolol kale cunadiisa waxa laga yaabaa inuu salar cuno adigu salarkii ma cuntid waxa laga yaabaa inuu maxaan ku raahdaa ay dheelitiran tahay waxa laga yaabaa inuu gym 4 saac ku jiro waxa laga yaabaa inaad ku qosashaa markuu wadada ordayo adigu si waxa dhan ma sameynaysa marka wadankuna ma yara oo masalana waxaasi waxa loo yaqaan waa systemka aynu soo dhaxgalnay oo runtii aan fidgareyn baahida aan qabnay laakiin at the same time waxa jira waxyaalo annaga shakhsiyan oo lafaha yaga aan u naxayn marka adigu naftaada u tiri weeyeen familkaaga naftooda u tiri waayaan hadda waa tan marka la doonay dadku inay ogaadaan in aysan sahlanayn oo islaamikana aysan xaq ahayn dhici karta in lagu dambeeyo qofka inuu naftiisa u horseedo dhibaato iyo jab marka intaas aan ka dhigi lahaa yes maxaa keena waxa keena isbedelka dhacay ayaa keena ma qaano qayb tasagu bin samaan هل سؤال بيننا إن شاء الله جمع كرس هكذا كرتوية أنا مقلان إذا كرفتور بالليل هو جالسين
hilibka idaha cholesterol leeyahay iyo